السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرن معجزة وإلهي سبحانه وتعالى تصي ولكن أحمد أيان ربنا إن إذن لو ذاقنا أرن كاسي وحكا لماها وحكول عي ولكن حانون باصوها ليلي اختربو تجي وحلقو يري قلين باقليسا قلين كاغا مركا الله السمين ايو وحالله بدينيا إن قلين كاذن كبد بادي لكن سإلهي سبحانه وتعالى وحكومة نيستي إيمان وحا إلهي سبحانه وتعالى هلاشي دعو إن وكعل عليو صبحي وكعل عليو هبينكي وكعل عليو إلهي سبحانه وتعالى وحو نتيجة كردقي إن markii uu ku noqday dhakhtarkii ku noqday oo baaritaanadii la mariyay in ay noqdeen wixii oo dhan kan wixii kama jiraan ay noqdeen oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku shaafiyay adiga ay daawanaya iyo anigu waxa rabnaa inaan ka faa'iideysano ducadaas Ilaahay subhanahu wa ta'ala ku shaafiyay walaalkeen waxaan ku soo dhaweynay walaalkeen Axmed marka hore si uu isku keen baro horta walaalkeen Axmed waa kuma ahlan wa sahlan wa rahmatullahi wa barakatuh assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhammaan walaalaha ku xiran walaalkay Sheekh Maxamed Jaamac aad baa salaamantiin marka hore marka kale toona hadiyadan ay idin soo diri doono waa mid adiga ku anfici doonto anagana anfici doonto anigu ninkan walaalkay waxaan isku nahay dad walaal Ilaahay dartiis isku jeclaaday khayrkan isla jeclaaday alxamdulillah magacaygu waa Axmed Jayta Suufi insha Allah waxa waaye waa inta badan waa taqaaniin inta ku xiran walaalkay inta ay aqoonin barasho wanaagsan waxaan rabaa marka inaan horta qof walba waa camalkiisa iyo iimaankiisa ma sha Allah ay ku xiran tahay صح bishii hadda dhamaatay sideedaad ayaa waxaan la kulmay dhakhtar صح dhakhtarkii markaan u tagay wuxuu dhahay warniyahow xanuunka ku haayo meel hadda ka hor qaliin lagu sameeyay wuxuu dhahay xanuunka ku haayo ma garan karno صح laakiin haddii meeshaasi qaliinka hor lagu sameeyay dhanka wadnaha dhinaciisa xigto haddana waxaa laga yaabaa in xanuunkaasi 50-50 oo noqdo oo xanuunka ma taqaana ii sheeg in ama waa dhimo kartaa ama waa noolaan kartaa oo noloshaadiba qiil baa la geliyay qiil la geliyay Allahu akbar markaas waxa ku dhahay wuxuu dhahay marka laba isbuuc ayaa fasaxaysataa inaad ku dardaaranto ama aad dadka ma taqaana ay kugu dhow aad u sheegto wayhan ku yiri waa ka soo tagay marka gurigayga ku soo laabtay alxamdulillah waxaan bilaabay waqtigaasi horta quraanka oo anigu marka hore xaafid ahay inaan quraankii labada isbuucba aan ku dhameeyay laba jeer Allah ma sha Allah waxa ii dheeraa marka ducadan aadka u qiimaha badan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu igu badbaadiyay idinkana qofkiina xanuunsan aan jeclahay inaan maanta la wadaagno oo aan u sheegno inay qiimo leedahay ducadaasi duca kale ma ahan waxaan sameyn jiray marka صح salaadi subax marka in sha Allah ta'ala si fiican u dhageysana ducada si ay u xifdina in sha Allah ta'ala waa ku soo celin doonaa inta loo soo qori doonaa marka ku soo qori doonaa biidnillah ducada waxaan sameyn jiray marka xilliga salaada subax marka dugto صح oo adkaarta iyo wixii aan akhriyo kadib aan fariisin jiray ما شاء الله ducadan akhri jiray ducada ku celin ha la cadad la cadad ma xisaabin jirin waa iska wadi jiray ما شاء الله galabkii casirkii markaan dugto ilaa salaada مغربك أنتوا ولا حيسنا صح وأنا آخر سنجري ما شاء الله دعاء وكل العلم جري ما شاء الله هبينك السقط ده حمرك أنت صلاة الليل أسوأ كعو أو قرآن كي أنا آخرين يحل جاس صح يا وحسن ما يجري مركا قرآن كده ما يو أيضا كنت عايز سنجري ما شاء الله دعاء هذا إن شاء الله دعاء وحيت هاي مركا ودعاء يروكوبا أو أنا بضنين الله أكبر اللهم اشفني صح برحمتك أيه بأمرك صح بقدرتك بقوتك يا رب العالمين اللهم اشفيني إله الشافي وحيو شافي ساب برحمتك حريصتا بأمرك أمرك يا ربي بقدرتك أود هذا إله يقول شافي بقوتك إله أود هذا يوسف والله يا رب العالمين رب العالمين تشكره والدعاء داوكو ما شاء الله حنتك يا بحينين صح دبات أنا كأركينين صح سيدك دقنا لجوج جوابي دون إن شاء الله تعالى أنا إسكدريمي دونتو هدات كنسر لحن وصنتهاي هدا محلها إن ديكر إيه سكر إيه وحول بإيه كهايان عذر والبؤ كهايو دعاء سكاك فينا الله أكبر دعاء وحنا قدرتا إيمان إيمانك دعاء لي قف وآخر سنة يا لكن وين وقفك مسيها إن حنونك أو كانوا إلهي سبحانه وتعالى إلهنا قاضي أنا يمركي وقال إنه دكتورك أها ويصير هاي معناها إيش كان حنونك 50-50 هاي
horta alxamdulilah qof kale ma aaminsan yaa wax walba keenay ilaahay subxaana watacaala yaa wax walba biilahay marka waxaa dhacday waa soo gabagabaynaynaa ducadii markaa intaasi sitimaankaasi labadii sitimaanba aan kamilayo oo aan akrinayay dhakhtarkiyaa ku laabtay jimcihii hadda lasoo dhaafay markaan tagay iskaanaa lay diray dhiigaa lay qaaday candhuuf wax walba alxamdulilah maxaa la kulmay dhakhtarkii oo dhahay maxaa isticmaashay daawo noocaa isticmaashay wallahi kelmad kale ma ugu jawaabin waxaa ku dhahay daawona ma isticmaalin waddankan aan joogno daawada dhakhtar asoon ku qorin ma qaadan kartid marka wax kale maanan isticmaalin ducadaas oo keliya iyo aayaadka qur-aanka ilaahay oo qalbigeyga ku jiray iyo iimaanka oo ilaahay aaminsanaa ilaahay igu shaafiyey marka waxaan jeclahay adiga inaad ka faa'iidaysato aana sii gudbisid walaalahayna usii gudbisin insha allahu tacaala waxaa lagu yidhi 2 isbuuc oo keliya baad haysataa ee dadkaaga la soo dardaaran balse ma niyad jabine ilaahay subxaanahu watacaala iimaan buu siiyey oo ducadan u akhristay ilaah ku xirnaa ducadani waxay tahay halkan aan kusoo qori doonaa insha allahu tacaala allahuma shfiinii برحمتك بأمرك بقدرتك بقوتك أي إلهي سبحانه وتعالى كجبت بادي حنون فربضا قليل فربضا إلهي سبحانه وتعالى هبرك يا ولالكين عافماتك الله زياديو لمانتين وسلامتين وحاج على سنة يعني في كليبك أديات وقيمها بدن أرو مركو ويشة يا ولالكي وان لقي رادو حال ومدة أن لو ذاقنو سي أجر أين وهلنا أو حلقية موقف ما أنت